si haddaba maamulku u noqdo maamul la isku halayn karo kalsoonida shacabka haysta waa in dhammaan shaqaalaha ay noqdaan kuwo u adeegaya bulshada kuwo si daacada ku shaqaysan kara kuwo runtii ka tarjumi kara aragtida fog sidii caasimaddan ula tartami lahayd caasimadaha adduunka sidaas daraaddeed waxaan ku faraxsannahay in maanta la keenay qalabkii iyo daytadii iyo systemkii u baahnaa in lagu hubiyo shaqaaluhu ma yihiin shaqaalo hufan shaqaalo karti leh shaqaalo awood u leh howlaha loo igmaday inay qabtaan annaga maamul ahaan waxaa waajib naga saaran shaqaalaha xuquuqdooda inaan ilaalino ayagana shaqo kasta oo shaqaalo kastana waxaa laga rabaa waajibaadka loo igmay inuu ka soo baxo si taas loo helo nidaamkan waa nidaam qoto dheer oon rabo qof walba inuu fahmo waa nidaam isla xisaabtan waa nidaam agaasimo walba lagula xisaabtamayo waaxdiisa shaqaalaha jooga ma yihiin shaqaalo shaqeeya ma yihiin shaqaalo soo xaadira ma yihiin shaqaalo hawsha loo igmada ka bixi kara isla xisaabtankaas waxaan rabnaa agaasimo walba inuu si runtii systemka ma shaqaynayo haddaan isla xisaabtankaas jirin annaga waxaan rabnaa shaqaalaha oo aan runtii mishaar iska qaata shaqana qaban inaysan maamulkan gobolka xamili karin shacabkana aysan ogolaan karin sidaas daraaddeedna waxaan bilaabaynaa isla xisaabtan dhab ah 5 bilood u dambeysay shaqaalihii lagu helo inuu mishaar qaadanayo uusan weligii soo shaqo teginna hay-adaha garsoorkan u gudbinaynaa tallaabo sharcina oo laga qaadaa lacag kasta oo ka qaatay gobolkana dib ayuu usoo celinayaa intaas waxaa sii dheer in aan rabno 2500 ma xamili karno in miisaaniyadda gobolka ay 70% in ka badan ay ku baxdo mishaar haddana dadkii ay ku baxaysay aysan ahayn dad soo saaraya productivity laga rabay ma shaqaynayso marka waxaan rabnaa muddada 5 bilood daraasadaan wadnay waxaan wadnay ukuurgelid waxaan wadnay habka ugu habboon oo si cadaalad ah dadka loogula xisaabtami karo maanta wixii ka dambeeya qof walba hadduu isaga is xisaabin waayo ogaada muxuu ahaa tallaabo sharciga ayaa laga qaadi doonaa labo midda kale waxaan muddo ka shaqaynaynay sida xuseen u sheegay qorshe horumarinta in la sameeyo structure-kii iyo qof kastoo shaqaale ah hawsha loo igmaday waxa ay tahay terms of reference wax loo yaqaan arrimahaas oo dhan ayaa lagu salayn doonaa qofkan ma yahay qofkii ku habboonaa hawshan ka bixi karay mise maya intaas ka sokow marka diiwaangelintan noo dhammaato waxaa xigi doona in aan rabno shaqo walbo ee maamulka gobolka marka la jaangooyo inta tiro u baahan yahan gobolku awoodi karo hawshana fulin kara in aan ayagana ama imtixaan la qaado la hubiyo qofkaas si oo arka inuu ka qaybgeli karo in kale ama soomaalidoo dhan loo furo tartan furan halkaas waxaan uga haraynaa ma jiri doono qofkii isdhahayo xildhibaan ama siyaasiya ku keenay oo halkan u joogtaa haddaba maanta shaqada maalinta kugu dambeysa kuu noqoto qof aan uga aabayeelayno oo siyaasi inta keenay shaqo hala siiyo mishaar ha ku qaato waqtigeeda waa dhammaaday waxaan rabnaa in qof kastoo shaqaynayo shilinka uu qaato productivitykeeda in laga helo haddii laga heli waayo la isla xisaabtamo annagana sidoo kale in lala xisaabtamaan rabnaa sababtoo ah waxaa waajibna loo dhiibay shaqada muddada lahaanaya oo muddo kooban waari maysa war ha kaa haraa la yidhi marka waxaa la rabaa in aan u shaqayno si daacada si wadanida si ilaahna la ogyahay si magaaladan aan u gaarsiino meesha inaga istahesho marka intaas ayay horta barnaamijkan ku saabsan yahay cidda ugu muhiimsan oon rabno inuu barnaamijkan qaado ka shaqeeyo howlgeliyo hubiyo si daacad ah oo lilaahina waa agaasimayaasha agaasimo walba waaxdaada aa mas-uul ka tahay shaqaalahaas ciddaan joogin haddaba noo soo gudbi annaga adiga wax eedoo yeelanaysa ma laha annaga ayaan tallaabo ka qaadeen marka intaasaan jeclaan lahayn barnaamijka inaan noo ahaado aad iyo aadaan u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu